kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warkeena ugu door karoon duqeymo xoogan oo maanta ka dhacay magaalada Maqala TPLF oo soo riday diyaarad military dagaalo xoogan oo wali ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya beesha caalamka oo wali ka walaacsan dagaalada xoogan ee xarkaha goostay ee wali ka taagan dalka Itoobiya daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaa barnaamijka igala qayb galayo oo qodobadana halkan aan ku faaqidi doona ama aan ku falanqeyn doona aniga iyo saaxiibkay Santaag marka hore soo dhawow maasan fidan waan dhawahay maxaa inooga cusub dagaalihii u dambeeyay ee ka socday dalka Itoobiya si guud ahaan marka hore dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waan salaamayna salaan kadib dagaalka ka socda dalka Itoobiya uu sii xoogeysanaya marba marka ka dambaysa dagaaladan Itoobiya waxaad moodaa Itoobiya inay qaaday jid aad u xun inay qaaday ayaad moodaa marba marka dambaysana ururadii dagaalamahayay ee dalka Itoobiya ka dagaalamaya ayaa soo xoogeysanaya maanta waxaa la sheegayaa inay soo riday xogayaal ay sheegayaan inay soo rideen xogaga TDF diyaarad military oo ay lahayd dawladda federaalka Itoobiya iyadoo waliba afhayeen u hadlay xogaga TDF uu sheegay una ku eedeeyay dawladda inay u adeegsanayso diyaaradihii dagaalka inay u adeegsanayso diyaarada xamuul ahaan inay u adeegsanayso oo diyaaradaasi wuxuu sheegay inay waday sad military ay waday waana diyaaradihii loogu talagalay in ay dabcan ay dagaalada ay ka qayb qaataan boo soo hadalka u dhigay laakiin TDF hubka ay ku soo riday ama gantaalada ay u adeegsatay diyaaradan military ee maanta ay soo rideen xagee bay ka keentaa loo oran karaa TPLF waa la og yahay 30 sano ay wadanka maamulahayeen way haystaan hub ku filan dawlado waaweyn ayaa maartay dabcan ayagana taageeraya oo sida Masar iyo Suudaan ayaa taageeraya maysan waayin waxay si kaliya ay dawladda kaga bedelan yihiin waxaa la dhihi karaa waa diyaarado ayeen haysanin oo marka ay ayagana sida duqeymaha lagu fulinaya ay ku fuliyaan ciidamada dawladda federaalka iyo gobolada kale ee la dagaalamaya sida Amxaarada oo kaleeto hub ku filan way haystaan hubkii dawladda ayaa wali gacanta ugu jira kuwa kaleeto oo dawladda ay siinayaan waa jira lidka diyaaradaha ayay haystaan gantaalada waaweyn ee ayadana maaragtay sida darandooriga u dhaca ayay haystaan marka saanad ku filan oo xagga ciidanka kaga filan way haystaan waxayna u digeen oo kaleeto oo shalay waxa digniin ka soo baxday xogaga TDF ay sheegeen in agagaarka magaalada Desai inaysan diyaarad aysan mari karin hawada aysan soo gali karin waxay sidoo kale xogaga TDF ay maaragtay u jiraan sida la xaqiijiyay 30 kilomitir bay magaalada Desai ay u jiraan magaalada ay ku soo jireen ay ku diyaaradda ku soo rideen waa Kutabar magaalada Kutabar aan u imaano aga Desai waan geli doonaa maanta waxaa mar kale duqeymo laga fuliyay Maqale iyadoo ognahay in duqeymahan maanta laga fuliyay tii lixaad ay tahay oo dawladda federaalka Itoobiya ka geysanayso marka duqeymtan maanta halkaas ka dhacday maxay kaga duwan tahay kuwii hore ee ka dhacay intii duqeymaha ay ka bilaabatay Maqale waxay kaga duwan tahay duqeymihii hore waxaa la beegsanayay saraakiisha ugu sareysa xogaga TDF laakiin hadda tala fara way ka baxday diyaaradahan waxaad moodaa hadda inay maaragtay ay goob walba oo ama dabaq dheer ku yaalo ama wax lagu tuhmo inay ku dhufanayaan gantaalada ay ku dhufanayaan khasaare badan ayaa shacabka soo gaaray lowad shacabka Itoobiya ayba waligoodba tacadi ay iskaga soo jireen hadda tan way ka sii duwan tahay oo shacabka Itoobiya waxaad moodaa maaragtay in dhibaatooyin badan loo geysanay xogaga TDF naftigooda ayagana shacabka ma cafinayaan goobaha ay soo gaadhaan iyo degmooyinka ay qabsadaan shacabka waxay kula dhaqmaan dacatiyo iyo dil iyo kufsi iyo dhac boob wax walba ayay ku sameeyaan kuwan dawladana diyaarada ayay ku duqeynayaan marka waxay u dhaxeeyaan laba dab oo labada maaragtay dhinacyada ka soo horaya ee shacabku wali ay dhex joogaan haddii aynu aadno dhankaas iyo Desai wali dagaalada halkii ka sii socdaan labada dhinac guula ay kala sheeganayaan ma kula tahay dawladda federaalka Itoobiya in ay difaacan karto magaaladaas maya sababtoo ah haddii magaalada Desai la difaaci karo 30 kilomitir xogaga TDF oo may soo gaadheen balse waa la isku jabi oo dawladda waxa waaye inta karaamkeeda way wadaa ciidamadii Amxaarada ayaa meesha jooga kuwa laga keenay gobolka Oromia iyo kuwa laga keenay Bishanguul ayaa sidoo kale tayagana meesha jooga oo ka dagaalamaya
waxaa jooga ciidamadii cirka ayaa naftirkooda jooga oo ilaalinahaya khadka iyo nidaamka iyo diyaaradaha qaabka ay duqeymaha u sameynayaan jooga ciidamo fara badan ayaa jooga dabcan laakiin xogaga TDF na iyagana waxay ku xarbinayaan oo naf iyo maalba ay u hureen sida ay gacantooda ku soo gali lahayd magaalada istiraatiijiga ee Dasai ee gobolka Wallo jabhada faano xiriirka la leh dowladda federaalka Ethiopia ee haddana dagaalka qaybta ka huwanta kamid waxay soo bandhigeen ciidan badan oo xamaara oo maanta ay ku soo bandhigayeen Dasai ay lahaayeen waxay ka bedeli doonaan dagaalka ka socda aagaasi TDF na waa soo gabagabeynayna maxay ka bedeli karaan dagaalka طبعا waxba kama bedeli karaan waqtiga dagaalka ay dheereyn karaan oo macnaha waxa weeye muddo badan ay hadda magaalada Dasai ee dagaalku uu ka socday almost waxay qaadatay 6 bilood 7 bilood ba hadda ay sii maraysaa oo korkeeda lagu dagaalamaya shacabka halka ku jiray way qaxeen qof ma joogo dhul buuraley ayaa dagaalka maartay la iskaga hor imaanaya dhulkuna hadii uu banaan yahay dagaalku waa lagu kala bixi lahaa dhulku waa dhul buurale waa dhul waxa weeye markay xaggan ka dagaalamayaan buurta ay dhinaca kale wareegaysaa dhinaca kale ayaa ka soo galaysaa waa dhul farqa marka nimankan hadda la qoray ciidamadan ay soo bandhigeen ciidamo khibrad leh oo dagaalkii waxa weey loo soo carbiyay oo muddo tababar ku filan la soo siiyay ama qorigii qaabka ay u dagaalamayeen la soo siiyay maaha waa dhalinyaradii iskuulada iyo jaamacadaha oo la ururiyay way marka waxay ka bedeli karaan male laakiin waqtiga way dheeraan karaan oo maaragtay dagaal hadee rag ka hortago ciidan fara badan oo xoog leh oo dagaal waxa weeye dagaal qaaday bay noqonayaan waa laga yaabaa inay maalmo la iscilcishado balse xooga xagga TDF waxa ka go'an magaalada intuu qof ka nool yahay inay gacanta ku dhigaan haday gacanta ku dhigaana waxa u sahlamaysa inay Addis Ababa ay soo galaan hadii aynu aan dhankaasi canfarta maanta TDF waxay sheegteen inay qabsadeen magaalada Wamo marka magaalada waxa la sheegay in magaalo istiraatiiji ah ay tahay markii loo fiiriyo gobolka canfarta marka canfarta dagaalka ka socdo maxaan kala soconaa canfarta muddo dagaalkooda wuu socday hadda labadii asbuuc ugu dambeysayba gudaha magaalada ay ku jireen maalin hore waa ka qabsadeen magaalada Jifra oo degmo ah degmadana waa degmo istiraatiiji oo ah dhinac walba markii la eego canfartuna markii loo eego goboladan kale ee xogaga TDF ay dagaalada ka wadaan waxa la dhihi karaa waa barqin mar ayaa la dhihi karaa sababtoo ah canfartu tira ahaana way yar tahay ciidan ahaana way yar tahay hub ahaana hubka amxaarada hadda ay haysatay ku dagaalamaysaa iyagu maba haystaan oo ma soo gaarinba midda kale canfarta gacan bidixayn ayaa ku socotay 30 sano ee la soo dhaafay sida Soomaalida kale ta weeye marka umalayn mahayo TDF iyadoo ban hadda xoog saarin hadda xoog saaran inay canfar u daahayaan beesha caalamka maxay tilaabo uga qaadi lahayn ilaa iyo hadda labada dhinac ee isku dagaalay dalka Ethiopia beesha caalamku way kala safan tahay laba qaybood ayaa loo kala safan yahay sida aan ognahay dawladda federaalka Ethiopia dawladda waaweyn oo quwad adduunka kule oo codkoodu soconaya ayaa taageeraya oo hub iyo dhaqaalaba inta karaamkooda ku bixinaya halka TDF na ayadana dawladda waaweyn ay wax siinayaan Mareykanka iyo Ingiriiska iyo qaylo ayay wadaan oo qaylo badan ayay wadaan marar badan warar ayay ka soo saareen si maaragtay mar dacati ay ku tilmaameen in dawladda federaalka ay geysanayso oo shacab ay xasuuqday mar ay ku baaqdo in dagaalka si maaragtay loo joojiyo si dhaqso ah in la wada joojiyo xagga si shuruud la'aana macnaha in la joojiyo dagaalka oo labada dhinacba ay qaataan xal nabadeed inay qaataan balse waxaad moodaa inay wali ay maaragtay dhinacna yar taageersan yihiin ayaad moodaa oo dhaqaale ahaan iyo maaragtay hub ahaanba ay si indirect ay u siinayaan xogaga TDF halka dawladuna ay dawlado waaweyn oo Ruushka iyo maaragtay ay kamid yihiin Turkiga iyo ay kamid yihiin ay taageerayaan marka dagaalku mar hadii uu sida uu noqdo waxay qaadaysaa Ethiopia wadadii ay qaaday Libya Yemen Soomaaliya waageedii hore wadamo badan oo Afrikaana ama Carabta kamid ah ay qaadeen ayay maaragtay yaad moodaa Ethiopia inay qaaday waad maasantahay santaag waxa intaasi daawadalay inooga eg falanqeyn kooban oo ku sameeynay dagaalada wali ka aroosan waqooyiga dalka Ethiopia intaan barnaamijkan kan xukulmayno nabad gelyo